kumanaan qaxoonti iyo muhaajiriin ah ayaa muddo 3 toddobaad ah ku xarooday afaafka hore ee xarunta qaramada midoobay ee Tripoli iyagoo ku baaqay in laga soo daadgurayo Liibiya kadib markii ay socdeen hawlgallo ballaaran oo kumanaan qof loo xiray iyadoo hay'adda qaxoontiga ee qaramada midoobay UNHCR ay sheegtay inay joojisay shaqadii ay ka waday xaruntaas ku taal caasimadda Liibiya kadib hawlgalkii ugu dambeeyay ma jiro daaweyn caafimaad cunto ma jirto biyo ma leh dhibta ugu weyn waa musqusha ayuu yiri mid ka mid ah nin Eritrean ah oo waqti ku qaatay goobta waxaan rajaynaynaa in UNHCR ay nageyn doonto dal amni ah dhanka kale Soomaalida ayaa ah kuwa wali si taaltaal ah u socda jidka adag ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo dalka Liibiya kuwa ka mid ah dhalinyartaas ayaa hor fadhiya safaaradda Soomaaliya waxaan ku bilaabayaa magacayga Maxamed Cabdullaahi Baledhaha waxaan halkan u imaanay waxaan joognaa hadda ku sugannahay safaaradda Soomaaliya waxaan u imaanay safaaradda Soomaaliya magangeliyo iyadoo la socotaan Liibiya xaaladda iyo dhibaatooyinka ka jira safaaradii markaan imaanay aan calankii Soomaaliya soo hoosgalay ayuu ninkii meesha haystay madaxda ka wuxuu yiri iga baxa waxaan ka codsanaynaa dawladda si degdeg ah inay nooga soo gaaraan maadaama haddii aan baxno meel la maro iyo meel aan u baxno midna aysan jirin بسم الله magacay waa Saciid Umar Maxamed maaragtay waxaan joognaa Liibiya xaalad xun ka jirto waa la socotiin Liibiya marka waxaan ka codsanaynaa dawladda maaragtay anagoo maaragtay imaana calankeena hoos maana safaaraddeena imaanay in lagu dhaho maaragtay banaanka nooga baxa kana arrin maaragtay askar iyo maaragtay dhibaatooyin loo geystay tacadiyo haddana u socno dalkeena in maaragtay anagoo dalkeena u socno dalkeena u ordayno dhalinyara banaanka u baxa taasna mid xaqamaha waxaan rabnaa in degdeg uga bixiso maartay u bixiso jawaab degdeg ah dawladdu Assalaamu calaykum waxaan aad iyo aad uga xumahay anagoo Soomaaliya oo dhibaato aad iyo aad far badan ka soo marnay dalkan Liibiya imaashihiisa haddana joogna safaaradda Soomaaliya oo calanka buluuga soo hoosgalnay in caawa xilli chief oo xilli dambe nala ku yiraahdo banaanka ka tihiin safaaradda banaanka u baxaysaan anagoona meel kala garanayn oo garanay calanka Soomaaliya iyo safaaradda dadka inta jooga intooda badan guryahoodii waxa ka soo carareen meesha ay ku joogeen ayuu xabsi badan iyo dhibaato badan soo mareen marka dawladda Soomaaliya waxaan ka codsanaynaa si degdeg ah in nooga soo gaarto ninka meesha haystaana wuxuu noo sheegay haddaan meeshan ka bixi weyno inuu askarna ku yeeri doono askartada naga bixi doonto meeshan haddaba in ka badan 5,000 oo qof ayay ciidamada amnigu soo ururiyeen tan iyo 1 Oktoobar waxaana la dhigay xabsi aan xad lahayn waxa ku jira 540 haween ah oo ugu yaraan 30 ka mid ah ay ahaayeen xaamilo sida lagu sheegay qiyaasaha qaramada midoobay 8 Oktoobar ugu yaraan 6 qof ayaa la dilay iyadoo kumanaan maxaabiis ah ay ka tageen xarunta dadka lagu hayo oo lagu magacaabo Godsal qaxoontiga iyo magangeliya doonka ayaa rajeynaya in loo daadgurayo wadamada nabdoon ee Yurub ama waqooyiga Ameerika khamiistii Liibiya waxay martigelisay marti sharaf ajnabi ah shirka xasrinta Liibiya kaas oo la qabtay si loogu durbaantumo doorashooyinka loo qorsheeyay Disembar iyo Janaayo Liibiya ayaa muddo dheer soo jiidanaysa qaxoonti iyo muhaajiriin ka kala yimi Afrika oo dhan kuwaas oo ka soo cararay dagaalada kaligii tarisnimada iyo saboolnimada waxayna rajeynayaan inay gaaraan Yurub iyagoo ka tallaabaya badda Mediterranean-ka sanadkii 2017 midowga Yurub wuxuu ballan qaaday $10 milyan xagga tababarka iyo qalabaynta ilaalada xeebaha Liibiya si ay uga qabtaan dhexdhexaadinta xeebta iyadoo ujeedadu tahay in la joojiyo qaxoontiga iyo muhaajiriinta inay safarkan galaan in ka badan 82 oo rag haween iyo caruur ah ayaa lagu qabtay badda tan iyo markaas waxaana lagu qasbay inay dib ugu noqdaan Liibiya dadkii dhawaan ka hadlay taageerida qaxoontiga ku xayiran Liibiya waxa ka mid ah xildhibaanada caanka ah ee Mareykanka Ilhaan Cumar oo barteeda Twitterka ku soo qortay inay aad uga xuntay sida loola dhaqmayo qaxoontiga ku sugan dalka Liibiya